كي عالم كنا لا سعوديين يا يوكاسيها هجاك جمعة وناكسن مركلة أو قلب وناكسن سيدان باللوغي ما يدين شاقي دودا قلب توحن كفاقي دونا xiisada diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya ka dhac uratay waxaan dooda ku eegi doonaa khilaafkan waxa uu salka ku hayo maxaa xilligan ku soo beegay ma dhabba sida Soomaaliya ay sheegtay in Kenya ay faragelin ku hayso arrimaha Soomaaliya Jubbaland iyo dawladda dhexe xiriirkooda liita shaqa ma ku leeyahay arrinkan hadda Kenya lagu eedeynayo dawladda Kenya muxuu yahay mowqifkeeda ku aadan khilaafkan cusub xiriirka iyo isdhexgalka labada dad ee Kenya iyo Soomaaliya saameyn ma ku yeelan kartaa khilaafka labada dawladood maxay tahay danaha ay isku qabaan labada dal arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya dhawaanta la filayo door ma ku leeyihiin xaaladan hadda taagan inahaasi oo dhan ayaan marba dhinac ka eegi doonaa waxaana la jooga oo barnaamijka nagala qayb qaadanaya xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi wuxuu ka tirsan yahay baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna taageersan yahay mowqifka iyo siyaasadda dawladda Soomaaliya xildhibaan Professor Maxamuud Sheekh Maxamed Omar baarlamaanka Kenya uu ka tirsan yahay waxaana laga soo doortaa koonfurta Wajeer Professor Cabdi Ismaaciil Samatar wuxuu ka faalloodaa arrimaha gobolka iyo siyaasadda Soomaalidaba dhammaantiinba ku soo dhawaada dooda Jimcaha waana idinkaga mahadcelinayaa waqtiga aad na siiseen adiga mudan aad baad u mahadsantiin waxaan ku bilaabayaa su'aasha ugu horeysa oo ah khilaafkan waxa uu salka ku hayo xildhibaan Zakariya oo Muqdisho jooga no bilow bismillaahir rahmaanir rahiim war ma santahay Atoosh khilaafkan wuxuu salka ku hayaa arrin guun ah oo 70 ama 80 sano jirta oo ah dad iyo dal Soomaaliyeed Kenya iyadoo haysato oo laga gooyay jubbooyinka dawladda Ingiriiska ka gooysay ayay haddana waxay u soo dhigatay qaybtii ka hartay Soomaaliya inay ku darsato bad iyo biriba inta waxa dheer hagardaamada iyo ethnic cleansing-ka yani Kenya waxay ku eedeysan tahay xasuuq jinsiga Soomaaliga ah oo cimrigiisu 70 sano uusan ka yarayn ayay ku eedeysan tahay waxay ku eedeysan tahay dumin iyo sabotage burburin hantida xildhibaan Zakariya ay leedahay Soomaaliyeed xildhibaan Zakariya soo dhan oo isbiirtay weeye waxay ku eedeysan tahay iikaada wax su'aal bay weydiisay haye waxaan diidana maya 70 sano uma joogna hadda waxa dawladda Soomaaliya ee qoonsatay yaan rabaa inaan si kooban adoo ma hasan xildhibaan Zakariya Soomaaliya hadda waxay qoonsatay iyo hadalkeedii ay soo saartay wixii ay ku salaysay noo sheeg 70 sano iyo NFD inaga daa وردانو waxaan aaminsanahay ku sheegay dawladda Soomaaliya waxay way sheegto waxay tiri faragelin qaawan bay ku haysaa arrimaha Soomaaliya dawladeeduna inay hana qaado ma rabto waa cadda warka wasaaradda arrimaha dawladda ay sheegtay oo akhriyay muxuu ahaa agaasimaha guud ama xogayaha guud ee wasaaradda Maxamed Cali ayay ku caddahay laakiin waa wax isbiirsaday wuxuu isbiirsanayaan ma ogtahay waa gartay Zakariya haye soo weeye wax beel bay leedahay Kenya dul Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed ay kana ku darsatay inta weeye iyo badda problemkeeda laakiin faragelintan joogtada ah way doonayaan dawladda Soomaaliya inay horumartada Zakariya had saacadaas aan wada la dad xasuuqaanin وما سنت زكريا واد ما سنت وأنا ما أقول ميل حاس واحد لو حسوق دولة سومالنا عيدا ضد حسوق ميس شيئا وحن شعلنا هاي أضو أدو ما سنت لما زكريا محمود حاج عبدي وزارة الرماه الدبدة هي دولة فدرال كي سوماليا هدا شرتا وركي كسو بحي إن ضدنا جمعها أن كفاقدنا وحكى لنا وأرر يا تاريخ لجسوا جد بي وح دولة سوماليا قنصتي يعني رمينا نسوق ابنه وما سنت هل كقوي زكريا تاسو حويا إن أنا كسي أففته إن موضوع إنه وكوكبنا أبو يضل مدوغو هاي لكن دولة الصومالي ضد يدل نجاح يستان ميسن أورانين زكريا وحنشعل هاي ضد إن موضوع هذين وصعبه وانكوسو نقنا يا هلكا يوهاي زكريا محمود حاج عبد الله ما صن إن وحن ربا حلبان بروفيسور محمود شيخ محمد عمر برلمان كينيا تكتر سنتا هاي سياسة كينيا طبعا هذا ضد كل دفاع عيسى هبسوينة جوكتا أو الديجان كلاغا صدرته خلاف كان مركات إكتو محوصل كقوايا عمر aad baad mahadsan tahay Atoosh waxaan aad u salaamayaa uguna mahadnaqayaa xildhibaanka Zakariya iyo professorka igula jiro halka dooda waxaan runtii taaban rabaa inaan toos u abaaro ayaan doonayaa waxa maanta taagan inaan taabano muhiim bay inoo tahay inaan dib aan ugu raacno wax kale maaha laakiin maanta arrinta taagan haddaanu sheegno Soomaaliya iyo Kenya xiriir iyo wanaag ayaa ka dhaxeeyay taniyo qarni sidaa darteed waxaan doonayaa inaan taabano arrinta muhiimka ah arrinta maanta muhiimka ah
safiirka laga soo qaaday muqdisho oo lagu soo celiyay Kenya iyo safiirka Soomaaliya oo joogay Kenya oo ku noqday muqdisho arrimaha keenay iyo waxyaabaha keenay annagu waxaan u aragnaa in hawl siyaasadeed ay ku salaysan tahay in ay tahay baroor diiq la soo tabinayo ama la soo sheegayo in la xiiseeyo la doonayo doorashada soo socoto ee muqdisho ma arag meel ay Kenya ku xasuuqday ciidamadeedii dad Soomaaliyeed maanan arag aniga ka doodi lahaa nin Soomaaliyeed baan ahay xil Soomaaliyeed baan hayaa xil Kenyaanna waan hayaa waayo dadkii soo dortay iyo meeshii laga soo dortay 100% waa Soomaali xaggaana way u gudbaan xaggana way ku nool yihiin Soomaalida ku nool isli 350 kun ku dhawaadka oo daaradaha ka dhisata ganacsatada wadato dadka soo galo halka oo caafimaadka u soo galo aanan laga khalqalinin dadka waxbarashada u yimaado aan laga khalqalinin arrin siyaasadeed in lagu Omar waa maasanta warkaaga wacdi waa arrin siyaasadeed tiri Zakariya uu ka aragti duwan yahay Cabdi Ismaaciil aan u baaqaya Cabdi Ismaaciil siyaasadda Soomaalida oo dhan baad ka faaloota ma antan Soomaaliya geeska Afrika maxay kula muuqataa su'aashan ku noqonaya khilaafkan inuu salka ku hayo Cabdi Ismaaciil soo dhawow walaaladii way mahadsan yihiin dadka ku dhageysanayana way salaaman yihiin kelmadda ugu horeysa waxa weeyaan haddii meel qiiq had aragtid waa inaad ogaataa inuu dab jiro hadduuna dab jirin qiiq ma jirayo marka lama odhan karo waxa maanta joogan ka hadalnay salka waxay ku haysana waa in la isu xidhaa labadaasi si kooban oo isluub loo in la isugu xidhaa taasi waa mid talabaad waxa weeye labadan wadan waa jaar weeyaan adduunkana waa la kala shaqaystaa marka ma odhan karno Soomaaliya lagama shaqaysto Kenyana lagama shaqaysto ma odhan karno marka waxa weeyaan labada wadan ee jaarka kala shaqaysanaya siday u kala shaqaystaan maxaa xaqa maxaa xaraana marka arrintan maanta aynu ka hadlanay safaaradaha la kala qaadanayo waxay salka ku haysaa waxa weeyaan kala shaqaysigii oo miisaankiisii kala isku dheelitirismi waayey oo mid laga xoog weynaaday midna laga xoog batay walaa arrintu taasay salka ku haysaa waa gartay yaad isleeda marka yaa wax saluugsan Soomaaliya warkeedu wuu cad yahay haddii aan dib u xasuusiyo idinka iyo dhageystayaashaba warkii wasaaradda arrimaha dibadda waxa ku dhex jirtay faragelin bay nagu haysaa Soomaaliya faragelinta ma micnayn karnaa ma fasiri karnaa Cabdi Ismaaciil ku noqo qodobka isaga waxa weeye sidan ku sheegay adduunka waa la kala shaqaystaa walaal siyaabo badanna waa loo kala shaqaystaa iska dhaaf wadamo jaara wadamo saaxiibtinimadoodu isugu dhowdahay مثلا هذان تلمام كسية إسرائيل هي مريكان كوا صاحبه هوسه هذا هو كلا شقيستان وقت اللي بقى بنجري بصاصين إسرائيل أو بصاصية مريكان وقت اللي بقى بنجري مركا هذا الكم هلا بدن ودنا كينيا الصومالية ما كلا شقيستان وحوينا سليبا الله كلا شقيستا وكلا شقيستانه كي شقadaasi mid la iska celin karayo ma tahay oo albaabada laga xiri karayo mid aan laga xiri karin ma yahay marka cabasho waxba ma keento waxa jirta hadaan ii ogolaatid walaal maxamed Salebaan tubeec qaado oo la yiraahdo cidna eersan maaye cabasho iyo calooliyo ciil kama reebaan ayuu yiraahdaa maxamed marka waxa weeyaan cabasho waxba inooma keenayso hadaan Soomaaliyeed nahay labada dhinac ku noolaado waxa weeyaan aqli iyo garaad baa cilib looga taga marka waxa weeye waa la kala shaqaystay maxaa keenay maanta in arrintan soo fooracdo oo dawladda Soomaalidu cabato waxaan qabaa waxa weeyaan markaas dhaliil xamar xaala ayaa keentay albaabada waa hore la iska xiri lahaa maxay tahay Cabdi Ismaaciil dhaliisha hadad sheegto dhaliisha waxa weeye midalan wadamo badan ayaa soo faragelinaya siyaasadda Soomaaliyeed oo qadar kow ka tahay Kenya waa la sheegayo Ethiopia waa la sheegi jiray waxa weeyaan Soomaalidu albaabada maxay iska xiri waayeen halkaynu cid kale canaanan lahayn ama haynu caban lahayn cabasho inama daweyna saada Soomaali tahay marka waxa weeyaan wadan qura Kenya hadii laga hadlo waxa weeyaan dhibaato weeyaan waa in laga hadlaa wadamada wadanka oo dhan soo wada faragelinaya qadar kamid tahay Imaaraadku kamid tahay Sacuudigu kamid yahay European Union kamid yahay sida uu soo faragelinayaan iyo dhibaatada keenayaan inta loo qeexo ummadda Soomaaliyeed sababna darbigii waxa ka celin lahaa dadka in meesha la keeno laakiin waxa weeyaan aniga ka iga soo horjeeday wadanka kala ayuu man ka hadlaya kuwa taageerayna kama hadlayo waa ceeb weeyaan iyo aqli darro taasi wala waxaan u baaqayaa Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi haye dooda waad maqlaysay faragelinta waa la sheegay oo tarjumaad badan aanan laga bixinin faragelinta haddaad sheegto maxay noqon kartaa Zakariya oo Muqdisho jooga xildhibaan soo dhawow
faragelintaasi waa caddahay waxa weeye horta marka ugu horeysa in la isyeelyeelo maaha dadka Soomaaliyeed oo 30 sano dawlad la labada dawladood oo jaarka lagu sheego inkastoo dad Soomaaliyeed oo ay haystaan labaduba noo dhaxeeyaan Ethiopia iyo Kenya faragelin maaha waxay ku hayeen wax ka weyn weeye waxa weeye occupation weeye qabsasho weeye muxuu ahaa dil weeye gumaysi weeye dawladda Soomaaliya marka hadda sababta keentay wax kale maaha waxa weeye xoogaa soo fufido soo naaxida baa bilowday dawladda Soomaaliya oo aad moodid inay yani meelaha qaarkood waxyaalaha qaarkood ay sharwaad kaysan karin hadeer baan dhageysanayay dawladda Kenya waxay leedahay Soomaaliya lagu awoodowday oo ku dhiiratay inay xiriirka noo goyso macnuhu intaa weeye ma dawlad Kenya ma oranin waa aragtay Zakariya arrintan goynta ahna ma soo bilaabo waad ogtahay dhowr jeer baa muxuu ahaa isku dhacdhacay diyaaradii waa la joojiyay qaadkii Kenya waa la joojiyay yani ogtahay waxay leedahay hadda ku salaysaan doorasho dhacaysa hadda waxa way dadka taawareerinaysaan doorasho wax shaqo ay ku leedahay ma doorashada Soomaaliya waa qabaa'il soo dooranayo xubno iyaga ka tirsan oo xildhibaan ah marka ka bacdina xubnahaas ay madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka dooranayaan maxaa ugu jira arrintan wad maasan ay ku leedahay male Zakariya wad maasan saddexdii sano oo soo haddaad noo sheegto haye oo mar walba khilaafka dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya oo ay sabab u tahay ficilada dawladda Kenya arrin xataa Jubbaland iyo muxuu ahaa maamul ka jira iyo ma waa arrin ka weyn weeye marka laga soo tago qaadka iyo diyaaradaha maalin walba saynu wuxuu hadoodinaynay wuxuu dagaynay keena wax yaqaana iyo keena aqoonba ayaa dalkiina la googoosay dawladdiina burburtay annagana isku hornimado islaynay waxa waa la dilaacay runta laga sheegaa labada dawladood oo Ethiopia iyo Kenya si gaar ah waa ogtihiin haysiyeelina Soomaaliya tiin dadka idin dhageysanayaan waa ogyihiin waa si gaar ah ciidamada jooga si gaar ah dadka u laayaan si gaar ah muxuu ahaay to haye Omar ku jawaabaya xilban Omar haye waa ku qeeyaan muxuu ahaa dadka reer baadiyaha aan dhageysano Zakariya aan dhageysano Omar ku khilaafsan haye xilban Omar Atoosho xildhibaan Zakariya inuu runta ka dhiidhiyo waa muhiim horta aan dib ugu noqdo arrimaha muhiimka xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ka dhaxeeyo aniga oo dib u tixraacayo waxyaabaha badana naga dhaxeeyo kaliya dalye iyo dhul iyo kaliya maaha dhiig iyo dhalyanimo kaliya iyo dhul maaha waxa naga dhaxeeyo waxa weeye wada xiriir wada shaqaysiga uu yiraahdo professorka oo aad ugu faraxsanahay Cabdi Ismaaciil runtii waxyaabaha aan rabo inaan dhiidhiyo waxa weeye Kenya 7 shay oo u qabatay Soomaaliya hadii dib loogu noqdo kaliya ayaa ku filan in qaaradda Afrika oo dhan iyo qaramada midoobay inta ay u qabteen inta Kenya u qabatay inay u qaban 1991 kii 19 markii ay burburtay hawada iyo badaba waa loo furay Soomaaliya Kenya uu furtay Ethiopia uma furin Djibouti uma furin maxay ahayd Eritrea laakiin Kenya way furtay Tanzania uma furin Kenya way furtay 3 milyan oo qaxooti baa imaaday qodobka saddexaad 350 ayaa isliimaanta ka ganacsata waxaa yimaada maalin kasta diyaarad 310 keento 310 na qaado waa 16 diyaaradood maalintii ka baxda Kenya wada xiriirka Kenya iyo Soomaaliya muhiimada ay u tahay waxaan rabaa inaan aad iyo aad aan u sheego dadka iyaga ku nool Soomaalida ku nool Kenya runtii daaha ay haystaan iyo hooska ay harsanayaan waa wada heshiinta Muqdisho iyo Nairobi in laga shaqeeyo dadka iyaga Soomaaliyeed ayay u runtay siyaasiga uma roono waxaanay ugu rooneen waxa weeye siyaasiga wuxuu hanqaltaagaya qaabkii uu bulshada iyo ummadda ay ku kicin lahaayeen waxa kale muhiim ah oo u dambayso nabad iyo nolol waxaa lagu aas-aasay Nairobi marka xiriirka maxaa dib loogu noqoni 70 sano waxa laga aas-aasay Nairobi sanad bay joogeen nolol iyo nabad dawladii u horeysay Abdullahi Yusuf markii la bilaabayo oo waa dawlad ay saldhigato oo xasiloon Soomaaliya laga helo tariyo uu siyaad barre uu ka tagay Allah u naxariistay kursiga 8 shir ayaa lagu qabtay Mbagadi baa koowa wasiirada halkaas lagu maamulay shirka u horeeyay baarlamaaneed ee Soomaaliya waxa laga qabtay Nairobi waa in la isoogaada taa iyada gobolka loo dhigay qarashka bixiyay Omar halkay way Omar aad baa hadashay ku jawaabo walaalnimadeena in aanu u fidinay mar walba oo diyaarna u nahay mar walba inaan u fidino marka dadka ha loo sheego bulshada ha loo sheego Zakariya aan ahayn dad xasuuqaya dad
dad xasuuqaya dad inaanan ahayn inaan xuduudada gudubno amison baan ku joognaa halka annaga kanaga amison wey Omar waan ku iman doonaa amison wax badanaad ka hadashay xildhibaan Zakariya ku jawaab Zakariya inta shay ee uu tiriyay ma ku raacsan tahay xildhibaan Omar dhegeyso horta nasiib darro weeye annagoo saddex oo Soomaali ah oo ehel oo walaalo ah inaan maanta u kala jeedno Kenya fiican oo dad iyo dal naga haysata inna hadda qaadatay iyo ma fiicna waxa weeye waxba kama jiraan xuduudaha waxay u furtay adeer haddaan ku yiraahdo xabad nacnacaan ku siinayaa oo aan xaaska iyo carruurta iyo beerta iyo xoolaha kaala wareego oo aad tiraahid Zakariya waa nin fiican oo xabad nacnac iga siisay intaas xuduudda waa la furayaa si ay dadkii dalka u qaadato saraha dhaadheer soo dhista waa la leeyahay si ay dadkii dalka u qaadato laakiin still Soomaalidu shuftay ka tahay Kenya waan ogtahay walaalkay hadaas weyna meesha joogo inta lagu laayo wuu ogyahay inta shufta loo laayo wuu ogyahay baba ka hadlay inta hadda dhulka ay haysato ay Zakariya waa taariikh ilaa maanta ay ka hadhay inta waa soo wadaaye arrinta diblomaasiyan ka qadsan 20 baa ka shaqeeya min makhaayad ilaa aqoonyahan Kenyaati ah oo ma Kenyaati Soomaaliya dadka Soomaalida ay gumaysato maaha Zakariya Soomaalida gumaysto odmanahan fadlan warkan noo qurxi BBC ka hadlaysa live tahay erey qurxi diblomaasiyadda labada dal aan ka hadalno maya meesha Zakariya warkan noo qurxi dood BBC aan wadna diblomaasiyad wuxuu ninkan sheegay ma ku khilaafsanta taariikh iyo shufta iyo Soomaalida gumaysto iyo ereyadaas ma ahan mawduucad aan ka hadlayno عطوشة ودن أفريكانا أو إنسا أقفتي سوماليا iyo wada shaqeeyada fiiri dawladda Ethiopia passport Ethiopia waxay ku bixisaa maalin bay qofka Soomaaliga ku siisaa ka integration iyo assimilation ugu sameeyso u qaadato dadka Soomaaliyeed waa siyaasad dawladeed inuu hadda qurxiyo xildhibaanka doctorka oo professorka ah maahan runtana uu og yahay xildhibaan Zakariya ay sameynayso dhan xildhibaan Zakariya passport Ethiopia kama hadlayno la ilaha illa Allah maya passport Ethiopia kama hadlayno diblomaasiyadda labada dal ee mawduuca waxay ka ahay dadka Soomaaliyeed halkay u socotay way joogtaa Kenya maanta haddaan la iska qabanna oo aan la iska muxuu ahaa moosina xamar bay imanaysaa xamar Zakariya ereyada aan ku hadlayso dhan dooda BBC-da uma fiicno mar saddexaadan ku sheegaya xamar ali haddaan iska moosin iyo BBC aan ka hadlayna fadlan mawduuca aan qurxisano xillan Zakariya bikulli ihtiram mawduuca diblomaasiyadeed iyo xiisadda labada dal aan ka hadalno waxaan u baaqayaa Cabdi Ismaaciil Samatar waaye dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya haye dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya waxa dhex maray haye wax weyn weeye waa wax bad dacwadeed socoto weeye BBC-du waad maasantahay badda ku ekaawda shuftay iyo xamar la imaanaya iyo inaga daa iyo taariikh hore 60kii inaga daa Cabdi Ismaaciil maxay kula muuqataa halkay dooda marayso walaal waxa weeye horta laba arrimood in la kala saaro weeye professorku amuuraha uu sheegay Kenya u qabatay wax jirana weeyaan waxaan jirin weeye waxaan jirin weeyana waan joogay bagaati markii la dhisayay dawladda Kenya iyo ninkii kiblagaati madaxda u ahaayay maamulaya arrintaasi si xoog leh ayuu isugu dayay inuu u janjeeriyo sida shirkaas u socdo sidii danta Kenya uga soo bixi lahayd anaa marxaati ka ahaa waan joogay guddi baan madax ka ahaa isku dayday in distorka ay soo saareen warlords iyo wixii baasay isdiidana in la habeeyo waan iska hornimidnay kiblagaati waxaan iskaga hornimidna waxa weeyaan dantu doonaya inuu fushado inaan ahayn danta Soomaalida taasi waa koow marka taariikhda waa in la saxaa Zakariyana xaq buu u leeyahay inuu sheego waxyaabahani inay shal dheer leeyihiin oo hayno madaxii umayno arkanaa mijihii ay ku joognay ma arkano marka labada arrimood waa in la sheegaa arrinta Soomaali badan inay degan yihiin dawlad Soomaaliyeed oo dadka Kenya ku dhashay kuna noolaan jiray taariikhdooduna halka jid ku jirtay marka hal la kala saaro labada arrimood waxaan wadan leeyahay waxa weeye sidan horeba u sheegay wadamadu way kala shaqaystaan Ethiopia way ka shaqaysanaysaa Kenya way ka shaqaysanaysaa Soomaaliya haddii taal yeelan lahayd way ka shaqaysan lahayd doodu maaha ma la kala shaqaysta waxa weeyaan haddaad adigu dadkaaga iyo dalkaaga doonaysid inaad asturtid adiga maxaa kula quman cid kale shaqada ku qaban mayso marka koow waxa weeye haddii la leeyahay Kenya fargelis nagu haysaa oo dhabcad
waana dhab arrintaas waxa weeye adigu maxaad ka qabanaysaa arrintaa ileen adiguna waa inaad ka shaqaysataa marka waxa weeye haddii la leeyahay ama doorashada ama Jubbaland ama dhul kalaba laga hadlayo dawladda Soomaaliyeed maxay qabatay dadkeegii ma urursatay meel ma u jeedisay si ay u noqdaan darbi Kenya iyo Ethiopia iyo kuwa kale hayna jabin arrintaa waxaan qabaa waxa weeyaan dawladda Soomaaliyeed xamarka bida way ku hoobatay iyadaana albaabada furasa markaasi in la soo fargeliyo laakiin si hadday sida Mareykanka iyo Israa'iil u sheegay la kala shaqaysanayo mid walba dantiisa gaarka ilaashanayo darbigana u dhisanayo meeshii shabaga laga soo gelayay iyo wuxuu ka celinayo la samaynayo waxaas ma yimaadeen lama oran karo markaas waad maasanta waxaan u soo noqonaynaa waxa diblomaasiyadan xasaasigeeda hadda keenay hadalka wasaaradda arrimaha dibadda waxa ku jiray Omar bay su'aashan ku socotaa in Kenya ay ku cadaadinayso madaxweynaha Jubbaland inuu doorashada khilaaf geliyo eedaas maxaad uga jawaabaysaan Omar haye atoshow runtii professorkan aad buu u mahadsan yahay kuma noqonayo pointyadiisii runtii laakiin interestka ummadda bulshada in la ilaaliyo baanu doonaynaa weeye waxa aan ka wada doodayda ay ku salaysan tahay macnaha bulshada waxa dan waa in la eego kuwa Soomaalida halka jooga iyo kuwa xagga jiraba marka taa iyada baan u leeyahay in diblomaasiyada la soo hormariyo haddaan ka jawaabo ereygaagii ahaa horta annaga ma faragelino Jubbaland howlaheedii iyo jaar baanu nahay aniga kula hadlayo ilaa 800 kilometer ku dhawaad baan 80 kilometer ku dhawaad ayaan jaar la leeyahay aan laahay Jubbaland iyo Kenya runtii waxa weeye laba wadan oo laba gobol iyo wadan jaara weey siyaasadooda gudaha waxa iskale Muqdisho u dhaxaysa iyada taa weey laakiin haddaan runta ka taabto ma adeegsato farmaajo waa nin jaarla halkan u yimaad muxuu ahaa farmaajo oranaya madaxweyne Axmed Madoobe Axmed Islaam runtii wuu yimaadaa waa wadan jaarnada arrimaha security-ga waa laga hadla arrimaha wada noolaashada iyo wada shaqaynta laakiin kuma salaysno arrin ku salaysan arrin siyaasadeed ma MPs-ka ayaa doortaa madaxweynaha Soomaaliya dastuurka wuu yaalo waa taqaanaan oo raggan baa iga wada yaqaana dastuurka Soomaaliya uu yaalo marka annagu ma garan karno meesha ay nooga iman karto inaan ruux u adeejisano in uu halka qalalaasa ka soo sameeyo runtii doorashadan iyada haddaan dib ugu noqdo Soomaaliyan aan u hadlo xagga Soomaaliya aan ka hadlo Kismaayo iyo Garbaharey ayay ahayd meeshii doorashada gobolada lagu qaban laga dooran lahaa xildhibaanada away maxaa laga qabtay taa iyada ma laga hadlo intii laga hadlayo Kismaayo iyo Muqdisho iyo Nairobi xiriirka dhaxyaale iyo wanaaga dhaxyaale iyo bulshada isu dhaxayso oo ganacsi iyo wada shaqay waad ka jawaabtay su'aasha shaqo kuma liin baatiri Soomaaliyeeda xalisato waa yahay saddexdiinaba iigu jira doodii jimcahan bartanka kaga jirnaa mawduuca aan ka doodayna waxa weeyaan khilaafka ama xiisaha diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya soo dhaxgalay balan dhageysano qaar kamid ah dhageystayaasha afkaartooda noo reebay السلام عليكم بعد BBC مقعيق وقدر سقو سراد oo joogo degmada balad xaawo ee gobolka Gada xiriirka Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya si xumaanay waxa sabab u ah dawladda Kenya ayaa sabab u ah waayo dhinac waxa qalaaf ka jira dhanka badda dhinacna waxa waaya arrimihii kale oo maartay xuduudka ayuu ka jira waxa loo baahan yahay in arrimahaas la xalliyo labada dal waa laba dal oo daris ah oo wadaag ah dad Soomaali ayaa ku nool marka waxa loo baahan yahay in xal waara laga gaaro waxaan dhahilahay dawladdu waa inay arrintaas si degdeg ah wax looga qabto labada darisna ay fariistaan miiska wada hadalkana ay isugu yimaadaan si khilaafkaas loo xalliyo waa salaamantiin bahda BBC wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Cabdiraxmaan Xaaji Daahir jooga degmada Cali Xayn oo ka tirsan gobolka Awdal xiriirkan si xumaaday ee Kenya iyo Soomaaliya runtii wuxuu salka ku hayaa marka koobaad ujeedooyin siyaasadeed oo ay Kenya leedahay oo runtii Soomaaliya Kenya waxa uu aragtaa dal burburay dawladnimadiisa burburtay awood badan aan lahayn gobolka aan saameyn ku lahayn marka masaalixdeeda iyo danaha ay leedahay ka fushan karto waxa inta u dheer badda damaca xagga badda oo ay Kenya dhulkuntii ku hayso dhulkii badda Soomaaliya oo inay qaadato dabcan iyaduna meesha kama marna siyaasiga Soomaalida oo runtii Kenya ama wadamada gobolka runtii u kala badiya iyaga oo runtii marka doonaya garab inay gaashaan inay ka helaan Kenya si ay kursiga ugu fuulaan
mahmahba waxay ahayd gudniin haymaad goyseen haddaan barkay kugu jirin haddaan siyaasiga Soomaalidu Kenya u kala badinayn oo masaalixda iyo danaha Kenya aan u kala shaqeynayn de Kenya uma suurto gashay inay Soomaaliya faragelin toos ah ku yeelato. Alaykum BBC Soomaali magacaygu waa Hani Soomaali oo joogta Boosaaso salaam martida barnaamijka galabta waxay la tahay haddii aan fikirkayga ka dhibto xiriirka aan wanaagsan ee muddo u dhaxeeyay dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya runtii waxaa looga xumaado inkasta ay yihiin laba dawladood oo darisa xiriir badan ay ka dhaxeeyaan arrimo badan oo dan wadaagana ay leeyihiin balse waxa moodaa intii dawlad aan tahay Soomaaliya in Kenya ay faraha kala bixin lahayd arrimaha Soomaaliya hadday si toos ah u faragelin u sameyn lahayd ee hadday soo mari lahayd siyaasiyiinta Soomaaliyeed runtii waxa indhaha laga daboolan karin faragelinta ay ku hayso Kenya Soomaaliya taasina way ku saxan tahay in dawladda Soomaaliya ay u jirto xiriirka waxaan u arkaa inta Kenya ay arrimaha Soomaaliya ay faraha kala bixayso in dawladda Soomaaliya ay xiriir toos la yeelan sababtoo ah Soomaaliya waddan madax bannaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق والياس عمري يوسف وجوغل في كلوري دقمدا الرسيد ولدقان كسوماليدا واحد مدى مدحوين فرماتشو inuu rabo inuu jirto wada kale oo lagu soo dooranayo mar labaad waxaad moodaa runtii in maran habaabin ay ka tahay waxani isla markaana dawladdu ay maran habaabinaysa shacab waxaad moodaa in arrimo siyaasadeed laga leeyahay isku dhaca iyo khilaafka soo cusboonaaday oo u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya runtii waxaad moodaa waxa la hal diidanigeeda ku xoqatay ma weydo isla markaana وهذا تناعي تهاون مid kamida wadooyinkii uu rabay in mar labaad lagu soo doorto isla markaana uu jiranaya dhab labaad oo lagu soo doorto waxaan anigu leeyahay aad iyo aad bay ugu degdegtay Soomaaliya inay qaado talaabadan isla markaana waxay ahayd in laga fiirsado in talaabadan la qaado oo bal xal kale loo raadin lahaa hadii ay dhacdo lafteeda mahadsanidii idinkuna waad mahadsantihiin waa qaar kamid ah dhageystayaasha codkooda noo reebay waa hagaag waan siyaan baqaadayna xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi dawladda hadalkeeda waxa kamid ah in madaxweynaha Jubbaland lagu cadaadinayo oo Kenya ku cadaadinayso inuu doorashada khilaafo hadalka cadeyn ma loo hayaa Zakariya Maxamuud ya hadalka wasaaradda arrimaha dibadda mila socotaa Zakariya أبداً مغلية حلبان زكريا محمود حاج عبدي هذا الكدولة الصومالية وحكمتها إن دولة كينيا مدعوينها جبلاد أي كو عدادين يسئنوا خلافة دور الشذا يجد صعد كذا هذا الله وضو هذا الكعدين من الله هيا فرد عبد الرزاق وأنا BBC وحي ربط شيء معي وحن أنا وربا رونه ومد الصومالية ربطوا عن شيء يعني مرة ما هيدين BBC ومرة في إنجليز ومرة إنجليز ونك دلك يبيعوه واحد صاري واحد وزارة في كل جد وارم وحي حديث رونا هاي الحرير كوما يسنجرتين أنا وحن قبا إن دولة كينيا ماشي هذا أي مرة يسوه حدان فيري برد بيجي له جا واحد يمكن يسان فيري هذا الدكتور كبا عمر برد بيجي عندك في النبي يعني سيدا فلسطين إسرائيل وهذوك تاجو تشاحن سو ما قرن واحد كده يعني هليكوبتر جانشينس دايلي دخل الصومالية دولة الصومالية waxay gabtay oo ka dhaahday inay mar hore talaabo qaado saddex sano iyo barbaan ka hadlayay arinta waxaan Zakariya shan sano ka horeysay waa ka hadlayay Zakariya maanta haday line ka igi qabsatay khayr weeye Zakariya laakiin waa inay ku dartaa waxay dumisana in loo sheegto Zakariya waxaan rabaa waxa weeyaan walaalow horta maalin cadeyn aan BBC uma hayso maalin walba inay Kenya dadlayso hadalka waxaan rabaa in xaqiiqda laga aado mowduuca hadda aan ka hadlayno waxyaabo hore oo dhacay ma information kan naga qaado BBC waa idaacade information kan naga qaado haya laakiin cadeyn wallahi wada si billahi sallah ma maalin walba ciidan dadlayo dhan bay dhageysanaysaa ma waxa leedahay been sheego BBC ku xurmee haya laakiin waxaan rabaa wixii inay cadeyn yeelato idaacadan ka hadlayna Zakariya mowduuca aan ku soo noqono su'aasha iga jawaab adduunka Guardian ka akhri waxaad ka akhrisaa Reuters waxaad ka akhrisaa joornaalada Soomaalida waxaad ka akhrisaa Somali Star haya su'aasha jawaabteeda aan u imaan cadeyn ma lahayaa in madaxweynaha rasaasta lagu laayay adar gacli dhageyso way jirtay brownka lagu laayay waana ka hadalnay wax mar hore ahayd lagu seenayo waad aragtay hay mar hore ahayd waana ka hadalnay BBC da way sheegtay xoolo la laayo gedel lagu laayay dad la laayay waan sheegnay ee mawduucan ma ahan Zakariya mawduuca hadda aan ka hadlayna ka ma ahan sida kale balance of payment dhageyso balancega dhaqaalaha oo ka hadlay wadaadkan xildhibaankan Soomaalida ah laakiin kii uu shaqeynaya waxa weeye Dr. Omar hadda ereyga fiiri balancega dhaqaalaha
Kenya ayaa hadda naga badsata annaga maynaysa iyadu waa balas qof kasta Soomaaliya maadaama dalkii burbursan yahay Kenya maal gashada qof kasta Soomaaliya dafuru ka dhigtaa qaadka way keentaa ayaga ayaa lagu qabatay haye su'aasha aan ku soo noqono Zakariya iyadu lacag ma siiso intaasi ta shaqaalahooda ka shaqeeya mogtahay kubanaan shaqaalaha ay leeyihiin ma ka shaqeeya Zakariya su'aasha aan u soo noqono dooda inay naga faaftaan diidanahay cadayn ma lahayaa dawladda Kenya inay Jubbaland ku cadaadinayso in khilaaf ay geliso doorashada su'aasha way cadda xilman Zakariya bikulli ihtiram wasaaradda arrimaha dawladda siday sheegtay waa saas weeye adiga ka cadeen waa ma san inta ka rabka waad ma san doonaysaa maxay tahay wasaaradda iyadu waa sheegtay waad ma santa intaan ku weydiinaya geel la leeyahay la aadin waayahay aan aado ninka Omar waad maqlaysaa xilwan Zakariya wasaaradana way sheegtay faragelinta waxa weeyaan baa la yiri dawladii maamulkii Jubbaland aad ku cadaadinaysaan in doorashadii qaaf la geliyo warka maxaa ka jira xildhibaan Zakariya waxaan uga jawaabayaa hal eray kaliya horta Kenya ma doorato xildhibaanada ama madaxweynayaasha goboleedka ama madaxweynaha federaalka Soomaaliya ma doorato igad ayaa doorata ayaa garab siisay waagii la siinayay ama doorashada ka qayb gashay Soomaaliya inay xasilooni ka dhacdo oo doorasho sax laga qabto Soomaaliya oo dhan marka Jubbaland hadaan u soo noqdo madaxweyne Ahmed waxaa doortay shacabkiisii iyo xildhibaanadiisii Kenya ma dooran Jubbaland annaga doorashadeeda ma dhaxgalno laakiin hal kaliya aan ku sheego annaga ciidanka naga joogo halka AMISOM ayay hoos yimaadaan Kenya ciidankeeda Kenya ahaan uma joogaan waa sida Rwanda Uganda Tanzania Ethiopia dhammaan ay u tageen halka iyaga AMISOM ugu tageen ay horta Kenya ugu tagtay waa in bulshada aanan la marin habaabinin sidoo xildhibaan Zakariya uu damacsan yahay inuu marin habaabiyo ani xildhibaan Soomaaliyeed baan ahay oo Kenya ka imaado gobolka nagana waa Kenya 100% Soomaali baa soo dooratay marka Soomaali kale kaga duwan ma aha horta taa iyadana ha fahmo uma shaqeeyo Kenya waan ka shaqeeyaa wadanka Kenya ayaan qayb kaleeyahay marka taa waa taas iyada laakiin halka aan dib ugu noqonina xasuuqan iyo waxaan uu sheegay markii 2006 la soo galay Soomaaliya ilaa 2007 so Ethiopian 20,000 oo ciidan bay keentay waxay lahaysay ilaa 50,000 oo qof oo Soomaaliyeed oo dhigooda wali daadsan yahay Muqdisho kaliya ku lahayd iska dameelaha kale ay soo weerareen niyuusan ka hadlaynin taa iyada amisan waxay u tahay inay u hagaajiyaan waa sidii uu ahaa wasiirkii arrimaha informationka ka hadlay ama warbaahinta ka hadlay in Tigray oo kale sida arinteeda ay u dhacday inay Kenya kaga dhacayso war waxyaabaha oo kale hal iska daayo waad ma santa doodan sii wadeena Omar halkan igu hay siyaasadda hal iska daayo Samatar Cabdi Ismaaciil Samataraan u baaqaya waxaan rabaa su'aal kale inaan saddex diinaba idinku bilaabo Cabdi Ismaaciil baan marka hore dhigaya danaha labada dal ay isku qabaan iyo diblomaasiyadan haddeer aad moodo in dhaliisha loo jeedinayo marka la isbarbar dhiga ka waran Cabdi Ismaaciil ku bilow حوي عطوش لبعض صاحب وي محدثين وحويا كو وحلا اسكو هايستا وحويا دولة الصومال وحوي كعبنسا كينيا وحوي شيغنسا لبعض waa in diirada la saara way marka مثلا hadii arrimaha Zakariya oo ka hadlaya مثلا waxaan ka oran karaa telecommunication infrastructure ka Soomaaliya ama qalabka isgaarsiinta dawladda Kenya way qaratay in ciidamadeedu qaar badan burburiyaan Jubbaland inay burburiyaan waa ko marka armuracankaas way jiraan waan ka tagnaa laakiin inay jiraan in la ogaado amoortan la isku hayaa runtii waxa weeye siyaasadda Kenya soo faragelinaysa iyo ma soo faragelinayso haddii arrinta dawladda Soomaalidu daacad ka tahay waxay soo bandhigi lahayd laba arrimood waxay soo bandhigi lahayd wadamada soo wada farageliya kuwa iyada dawladda taageera qadar ay ka mid tahay waxay soo bandhigi lahaayeen kuwa kale soo farageliya Kenya haday soo faragelinaysa way soo bandhigeen inta waa la soo bandhigaa marka inay dawladda federaalka ee madaxweynaha Farmaajo iyo Fahd ay ka maamulaan inay ka soo horjeedaan Axmed Madoobe inuu meesha maamulo waa war cad oo la soo ogaa marka halkay isaga iska celin lahaayeen isaguna isku day lahaayeen isaga iska celiyo in dad kale la magacaabo waxay ku tusaysaa in aan adigu shaqadaadii dawladnimo iyo qarannimo iyo madaxweynenimo ka soo bixin haddii dadka Soomaaliyeed si xalaal loo wada maamuli lahaa la isku soo wada celin lahaa
walaalayn lahaa doorashadana wax xalaala laga dhigi lahaa Kenya iyo Qatar iyo mid kale muu soo farageliyeen marka dawladdu intay muraayada iyadoo isku eegto ha aragto inay iyadu keentay albaabada laga soo galayo faragelinta ah inay iyadu muftaaxeega haysay oo u furtay taha okay jawaabtaan u imaano isdhaxgalka labada dad dawladaha xagga noo dhig labada dad sida la sheegay xiriir badan baa labada dhinac ka dhaxeeya Zakariyana wuu qiray kumanaan baa xagga jooga xaggan sidoo kale saameyn ma ku yeelan kartaa isdhaxgalka dadka way ku yeelan kartaa waxa weeyaan waxaan kugu iri markii ugu horeysay bilowgay wuxuu ahaa waa la kala shaqaystaa marka sida loo kala shaqeynaysan dawlad kastaba waa inay samaysaa ilaa dadkayga u shaqeynaysaa shabad waxay doonayaan ay soo dhaafi karaan waxayna doonayaan soo dhaafi karin arrinta qaadka haddaan ka hadalno waa xaq bay dawladda Soomaalidu u leedahay inay tidaaho sharkiisa aan iska ilaalino dawladda Kenya inay tidaaho waxyaabaha annaka wax ma yeelay inay iska celino weeyaan marka labada dad ma kala tagayaan waa la kala shaqaysanaya sida loo kala faa'iido badanaya waxay ku xidhnaan doontaa marka weeyaan mid walba sidoo isagu intuu qorsheeyo asturistiisa meel soo dhigto oo mafaatiixda albaabada ka xidho laakiin mid hal la ogaado dawladda Kenya hadday doonayso walaaltinimo runa inay timaado darbiga Israa'iil oo kala may dhiseen sidoo Zakariya sheegay waa runtii weeyaan waxay ahayd in la yiraahdo waa dawladda Soomaaliyeed sida nooca una shabaab la iskaga celiyo laakiin marmarsiyo ayay noqotay in xadkii darbi laga dhigo South Africa anigoo joogay dawladda South Africa ay sheegtay ma waxa ka socda Falastiin ka socda ayay doonaysaa dawladda Kenya inay samayso marka dadka waxbay yeeli doontaa farsamada xumida labada dawladood wala santa xildhibaan Zakariya markaan eegno dhanka dadka dabcan de muddo siyaasi ahayd waad isaga kala goostaa geeska Afrika xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi Adahay soo kugu socotaa xiriirka dadyowga labada dhinac saameyn ma ku yeelan kartaa horta waxaan ka codsanayaa hadalka inaadan iga dhaxgelin ma jeclin hadalkayga la dhaxgalo wax runaan sheegaya waxa weeye saameyn weyn bay ku yeelanaysaa waxay ku yeelanaysaa iska daa dadka shaqaysta oo xaggaba ka shaqaystee dadka iyaga reer baadiyaha oo walaalaha ah oo wada daaqa oo isticmaalku kala gooyay xuduudda beenta loo sameeyay laftigooda ay saameyn ku yeelanaysaa geeleyda iyada xataa saameyn ku yeelanaysaa ma garatay sax laakiin waxaan ku sheegayaa ummadda Soomaaliyeed ma ogtahay ninkii Soomaalida macaynu kala gooyay isaga kala go'aya haddaan ku sheegaya dawladda Soomaaliya inay tabar yartaa la iskuma hayo inay wax badan khaldan yihiin la iskuma hayo tartiib baa loo saxayaa 30 sano dawladda Soomaaliya maqnayd Kenya waxyaalaha hadda ay u dardargelinayso faragelinta dadka Soomaaliyeed wax kale maaha yaysan soo noqon weeye ilaahay wuxuu naga dumiyay mid nooga darayd oo Ethiopia la yiraahdo iyada ilaahay isku jeediyay adeeru Tigreegi baa meeshuu maray aad u jeedaayay Ethiopia Kenya ma waysan inta ku cibra qaadanay Soomaaliya inaan la daansan wayna midayn markayna midaysana ayada ayay u dhameynaysaa Kenya dhibaatadu haddaan ku sheegaya waad ma santahay ama BBC-du harabta hadalkaas ama ay rabin ha maya waxa aan ku diidana badhi maahan waa inaan dooda soo koobno baan rabnay waad ma santahay Zakariya Maxamuud xildhibaan Omar wajeer baa laga soo doortaa xuduud baad la leedahay dhanka kale gada dhankeen ah iyo jubbada dhexe iyo jubbada hoosebo saameyn dadkii ma ku keenaysaa amurahan aad iyo aad bay u keenaysaa dadka horaan bataan sheegay dadka iyaga waxay daaqaan halka Soomaalidana Jubbaland ilaa iyo dhulalka dhan ka shaqaysana ama ka ganacsado ama daaqo xaggan ay u soo gudbaan daaqo ugu soo gudbaan waa dad walaala oo aan kala maarmayn oo aan kala harayn sida iyada ayaa muhiim ah in aan ogaano horta way saameynaysaa diblomaasiyada waxa kale oo ogaanaysaa 16 diyaaradooda maalin kasta ama ka baxda ama soo gasha oo Soomaaliya Omar waad ka hadashay khatir baa loo aad bay u saameynaysaa Omar waad ka hadashay waxa wanaagsan laakiin sidoo Zakariya sheegay annagana aan sheegay hadda inta wada ku jirnay horeyna aan u warinay ciidamada Kenya waliba gaar ahaan kuwa AMISOM aan ka tirsaneen oo ka talaabo xuduudda gaar ahaan gobolka Gado oo dad reemiye ah laayay qaar soo afduubtay diyaarada garaacay xoolo nool yaa lagu eedeeyay on dadkii wareysanay arrintaas miyaysan dhib ahayn horta Kenya ciidankeeda fasax bay ka qaadatay ciidanka Kenya oo AMISOM ahaa AMISOMna waxay wadatay calanka AMISOM ayay tahay oo AMISOM bay ku ahayd faafaxadun iyo Busaar ayay ka gudbeen ayaga oo fasax la siiyay
بساري فعدون كجود كبحيتان كمان أيا مايا سؤال شيء ده ما هن عيدا ماذي كبحي ما هن عيدا ما عيل وقدت كلاي ديارة إن حولك جراعي ديارة إن شركة ديارة محلها التلفون إيمانا الله سبحانه إيد مقطع عيون آذو قحنا هاي فلال دعي أن آذو قحنا هاي أورنتي أنك لبسنا ذا أن دولة كجيل سيني كينيا وايد إن aad baanan uga xumayn falalka ayaga ogana xunnahay runtii dadka iyaga Soomaaliyeed iyo xoolahoodii iyo hantidoodii in la baabiyo annaga ayaana raali ka ahayn waxaan annaga aan xildhibaan uga nahay halkan waanu difaacnaa wixii dan waa Soomaaliya garab baanu unahay intaan ku sheegayay gogosha aan u dhignay iyo inta aanu sameeynay hal kala shaqeyso sida professorka arrin aad u fiican buu sheegay wala kala shaqeysaa ataa waa taariikh in bagaadi taariikh la soo dhaafo waa dhibka hadda gada lagu hayo waxaan ka hadlay waa si ka jawaabtay waad macsantahay mar kale aan afkaarta dhageystayaasha wada maqalno salaamu calaykum dawladda Soomaaliya xiriirkii waxay u geysay dalka Kenya iyadoo sabab uga dhigtay inay dalkeeda faragelin ku hayso marka waxaad moodaa dawladda dhexe iyadoo ay ku soo socoto doorasho inay imika galgalasho fara badan sameynayso aad joogaysaan dawladda dhexe waxa la idinka rabaa dulqaad iyo samir haddaad tagaysaanna waxa la idinka rabaa dulqaad iyo samir ciriiriga faraha badan ay siyaasiyiintu kugu hayaan yaanu kugu xambaarin ina dariskaaga isa seegtaan sida maanta ba xiriirka ugu geysay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة ونكسن BBC مقعي وأواس حسن أحمد وكسر فكر لي بنا عاصمة بطلة نكرة وكنتي هدي عن كهذا خلاف كده صوماليا يو كينيا كنتي أنيقا خلاف كاس أدبان صومالي إنه سفير كذا دبوا يرتو كينيا حاجة أودرت أدي أدن سولبينا ويا كينيا نوما أقونسنا صومالي كجرت وطن صومالي دولة كجرتو حد رأي أقونسنا سوايو أنجا أيدا أيانوه يستدف ويا أنجا دفكم هاي سنة marka arintaas soo dhaweynaa marka Kenya waa inay u aqoonsataa dawladda Soomaaliya dawlad jirto ayna ka dhaysaa faragelinta ay ku hayso dalka Soomaaliya السلام عليكم والسلامي BBC قلب ونكسن مقعيقو حمدة محمد فارح حمد السقل دوادة قلبت هذا الكهر الله وحا إلتك هاي BBC لقا قناها الله ايو حديرك حمانا ايا إلا بدا الدل الصومالية يصدو كلا كينيا رمتي واحد مودة حديركو إنو وايدة تنبح ادو سوحناني يدو مرهرنا خلافكني وقرحي هرنا صفيرة الله وخلا يدي هذا وحا حيرا شافي كيمن ايي ميراغها ستلقى في كينيا يا هولا كلا أوفر بدل مركان وحنا أركاون صفير كان هذا الصومالي أو يعرفه إنه هاي أريمة سياسات يا ولي بلوجو جلا يا دورشة هذا الصعطة الصومالية صدق كلا واحد كده معمول قبلات كتشبلان أولي هاي كينيا أي لا صعدة أنبا أي قعسينيان تاسنا وحيوم موقتين هاي حقين هذا بدولة الصومالية يا جودهان لغفر يعين يدو نقطة متكفكرته معمول قبلات ده يولي ده حولي هاي السياسات ما دام أنا كلام مرمي كرين أو يهين لبضل أو دريسته جناح بدل نور حي لبضل دنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وعبد النور حسن محمد وجوga magaalada Muqdisho hadii aan fikirkayga ka dhifto barnaamijka dooda jimcaha ee BBC Soomaaliya waxay la tahay Soomaaliya markasta dawladda talada haysa waxay mas'uul ka tahay inay wadanka faragelin sheekay ilaaliso laakiin waxa muhiim ah in la kala saaro ololaha doorashada iyo wixii kale ee loo baahan yahay wadanka in faragelin laga ilaaliyo ah barnaamijkan dawladda Soomaaliya ka soo yeeray warkii dawladda Soomaaliya ka soo yeeray ee ahaa inay Kenya faragelin qaawan ku hayso dalkeena waa wax loo isticmaalay ololaha doorashada sababtoo ah 4 sano ka hor madaxda hadda talada haya halkii ay ka soo duulayeen ololaha doorashada ka sameeyeen waxa saldhig u ahayd caasimadda Nairobi ee Kenya sidaa darteed in hadartan la yiraahdo Kenya وعدو إثيوبيا وولال وواح لو استعماله ololaha doorashada ee ma ahan qadiyad kale galab wanaagsan magacaygu waa aan Sheekh Arab waxaan ka soo hadlayaa magaalada Midigale ee gobolka Sanaag rantii aad baan soo dhaweelayaa in dawladda Soomaaliya ay suucan dhamaaday u yeertay safiirkeedii ee u joogay dalka Kenya Kenyana oo tashi loo diray dalkiisi rantii dawladda Kenya waxay ku haysaa faragelin qaawan si dawladdu ay sheegtay dalkeena gaar ahaan maamul goboleedka Jubaland oo iyadoo rabtay inay saameyn ku yeelato doorashada dalka iyo hanaanka wax socdaan marka waxaan soo dhaweelayaa talaabada dawladdu qaaday dawladda Kenya inta ay faragelinta wadana waxaan rajaynayaa in sidaas lagu kala maqnaado waliba waxa wanaagsanaahay in cilaaqaadka dhan loo jiro maadaama ay faragelin qaawan ku hayso dal madax bannaan oo dawlad leh wad mahadsantiin qaar ka mid ah dhageystayaasha ayuu ahaa waxaan jeclahay dhowr qof oo fikirkooda ku tilmaamay in arrinkan dawladda Soomaaliya ay doorasho iyo ololo uga dan leedahay waxaan jeclahay Zakariya inaan weydiiyo dad baa fikirka qaba adi maxay kula tahay Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi xildhibaan baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan
horta unanimously dadku inta badanba waxay ka hadlayaan inay arrintaani sax tahay kenyana ay cadow tahay oo waad ogtahay adigu baayaysan noqonin waxa weeye sidaan hore u sheegayba doorashada tani doorasho public ah oo xisbiye ah oo qof iyo coda ma ahana waa doorasho clan reer baadiye ah qabiilo tifooyin ay soo dooranayaan wax shaqo ah oo ay arrintan ku yeelan karta qofkii taa u qaatana waa qof jaa wareersan oo aan bagaranayn doorashadu macnaha ay leedahay doorashadan ma aha doorasho xor ah oo furan ma aha doorashadan waxa weeye arrintaana waa la qirayaa inay soo dhacday hadda kahor baa laysu yeertay hadda kahor xataa madaxweyne xasan sheekh markuu joogay waad ogeyd in la joojiyey diyaaradihii in lagu dhigo muxuu ahaa meeshii la oran jiray wajeer yani maogtahay in laisyeelyeelo maaha madaxweyne xasan sheekh saas uu qaylinayay waktigiisii kuwii ka horreeyaa ka qaylinayay adeero arrintaan arrin soo socotay weeye kenya sidaan kuu sheegay waxay dareentay dowladnimadii soomaaliya in ciidamo la tababaray ay soo noqotay xuduudda ay tageen waxyaalahaas oo dhan bay ka hortagaysaa annaga kenya iyo etoobiyana waa noo siman yihiin laba cadow weeye maalinta aanu xoogsanana waa iska dhicinaynaa dadka iyaga iyo dalka iyaga ay haysatana waa laga soo celin doonaan zakariya aragtidaada waxaad ka hadlaysa waa aragtidaada waad mahadsantahay cabdi ismaaciil samatar aan u baaqaya cabdi ismaaciil samatar ma kula tahay sida dadka qaarkii ay sheegayaan waa dadka qaarkii in arrintan xilliga lagu soo beegay ololo doorasho ay tahay taasi waa dhab weeyaan waxayna dhab u tahay waxa weeyaan dowladda muqdisho fadhida waxay doonaysaa kuway doonaysa iyadoo taageeraya ajnabigana inay u yeedhato kuwa kalena hay ka xidhxidho marka waxa weeyaan qadar inay ka bilaawdo oo lacagta ka joojiso hay isaga siinayso madaxweynaha iyo cabdi ismaaciil samatar ma hubno BBC ma hubta lacag qadar ay madaxweynaha Soomaaliya siiso fadlan dooday aan xaqiiqo uga hadalno waxa weeyaan marka waxa weeyaan waxayna haynaan ininka ogeyn ha ii sheegin haddaad tidhaahdo waa dhib weeyaan marka dawlado fara badan ayaa faragelinaya qaar farmaajiya waxa la aanamaalay taageerayaan qaarna kuwa kale taageerayaan sida qudhe Soomaali looga badbaadin karaa waxa weeye 4 sanadood uu joogay meeshaasi hadduu ummadda si xalaal iskugu keeni lahaa oo la iswada waafaqi lahaa oo sharciga doorashada xalaal noqon lahaa oo madax banaanaan lahaa Kenya fargelinteeda waa laga adkaan lahaa kuwa kalena waa laga adkaan lahaa qadar iyo wixii la caanan waad maasantahay aad baad u maasantahay ugu dambeyntii halkan u imaanayna waxaan rabaa inaan u baaqo Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi Zakariya halka maxay kula tahay hadda cilaaqaadkii lama gooynin wada tashi un baa labada safiir loo kala yeertay diblomaasiyadda halkeeda maxay kula muuqataa horta waxaa la yidhahdaa macalcuna soo bixi doone haddii dawladdu ay ula jeedo campaignka aad sheegaysaan oo aan ogahay inaysan sax ahayn waa arki doonaa laakiin dawladda Soomaaliya xalku waxa weeye inay ku wado halkaas oo weliba ciidamada jooga Kenya oo jooga Soomaaliya ay tiraahdo naga baxan waa qodob dawladda Kenya wada hadal haday diyaar u tahay in la furo weeye ayadoo loo sheeganayo shirkadaha hormood dahabshiil waxay ka baabiisay dadka ilaysay waxa soo dhan iyadoo la combine gareynayo in marka la wada hadlo oo ay magdhowna ka bixiso waxa ay sameynaysan ummadda ka dayso inta weeye inta halkaay waayo anagu waa ku dilayaa ulbaan kula dhacayaa maya hadhiin oo hadhiin oo xanuunsanin oo hadlin taageer ma shaqeynayso anagu Soomaali baan nahay waa oranaynaa awalna annaga isku direen haddana waa soo jeednaa dadka Soomaaliyeed midnimadiisa baa soo noqonaysa oo ilaahay idinkiisa waxay arkeen dhibaatooyinka taagan oo waad maasanta halka waa sheegtay qiyaado wanaagsan iyo horumarna inay gaarto Soomaaliya laakiin halku inta weeye labada dawladood dawladda Kenya dhibta wada inay recognize garayso aqoon waad maasanta aad baad u maasanta xildhibaan Omar oo Habaasweyne jooga halka muxuu kula muuqdaa atosho halka wuxuu ila muuqdaa toosan oo abaare in wada heshiin la fariisto hadda wada hadal baa bilowday wada hadalka isaga labada wadanba muhiim buu yahay aadna waan ugu faraxsanahay professor Samatarkii uu yiri labada waa la kala shaqeystaa kala shaqeysigii haynoo hagaage waxaanu doonaynaa in ay fahanto Soomaaliya inay u bislaato wax la yiraahdo diplomacy inay jirto waxa horta nasiib darro ah in aqoon dhaba aanan loo haynin diplomacy macnaheeda wuxuu yahay Ingiriiska iyo Mareykanka intaas wada wax dhex yaala haddana wada shaqeyntii iyo dadkooda muhiimadda ay u tahay ayay eegaan
laakiin haddaad noqoto waraabo barta ma ogiye boodka uma muuqdo oo doorasho keliya ii muuqataa barta iyada ah inaad aragto oo doorashada iyo kursiga aan helo ma ahane diblomaasiga dhexda ku baaba'aya marka waa inaad eegtaa intaa kale waxaa kaloo ku raacsanahay professorka kale in ay Soomaaliya iska hagaajiso dadka fangaraynayo dhaqaalaha bixinayo oo dadka isku diraya ah oo mar walbaba gobolada uga kala waramayo aad bay u khaldan tahay marka waxaan doonayaa focuska inuu ahaado doorashada inay noqoto si cadaalad inay u dhacdo Soomaaliya ay nabad ku waarto dalkayagii weeye dadkayagii weeye waanu u duceynaynaa markay halka joogaanna waanu soo dhaweynaynaa markay xagga joogaanna waan ku faraxsanahay markay hagaagsan yihiin marka waxaan doonayaa in diblomaasiyada dib loo soo celiyo danbay inoo wada tahay geeljirahayga dan u tahay geeljiraha Soomaaliya joogay dan u tahay aniga jaar lama ii halka iyo Puntland laakiin waan ku faraxsanahay dhaqaalaha iyo dhaqaaqa iyo wanaaga ka socdo iyo diblomaasiyada ay isla waad maasantahay xildhibaan Omar waxaan ku soo qatimayaa Cabdi Ismaaciil Samatar halka muxuu yahay hal daqiiqad haysataa ama 30 second hal wax daqiiq waxa weeyaan halku xamar buu yaalaa waxa weeyaan guddiga doorashada oo madax banaan oo xalaal in la sameeyo taasi waa kow ilkaha ayay ka guri doontaa cid waloo cabanaysa markaas talabaadna waxa weeyaan halkeenu inaku yaalaa haddii la doonayo Soomaaliya inay iska celiso jaarkeega oo la xisaabtanto inaku hayno isxalaalayno laakiinse arrimaha jaadkii wax lamid in la joojiyo weeyaan Kenya waa inay ogaataa ciidamadeedu inay og tahay inay burburiyaan aaladaha casriga ah ee isgaarsiinta Soomaaliya xaqdarrana ay ku sameeyaan oo ay hormuud ka mid tahay marka waxa weeyaan xalku Muhammad buu yaalaa xamarka ka soo baxo walaal weeyaan aad baad saddexdiinaba u mahadsantihiin Cabdi Ismaaciil Samatar Maraykanku jooga Dr. Maxamuud Sheekh Maxamed Omar baarlamaanka Kenya ka tirsan yahay habaasweyne oo deegaanka Wajeer ayuu jooga iyo waliba Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi baarlamaanka Soomaaliya ayuu xubin ka yahay Muqdisho jooga saddexdiinaba waan idinkaga mahadcelinayaa waqtiga aad BBC da siiseen sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaasha afkaartooda codahaanta noogu reebay idaacaddii dooda Jimcaha aan ku faaqideynay intaasaan ku soo qatimaya Bashiir Maxamed Maxamuud Caato iyo Axmed Badar baa wadajir u soo saaray Mubaarak Cabdullah Mubaarak farsamadu ahaa aniguna Catoosh baan hay tan iyo kulankeena kan xiga nabadgelyo